dhegaystayaal waa barnaamijkii sagaalaad qaybtiisii lixaad wuxuuna ku saabsan yahay sheekadii nebi yuusuf waana qaybtii ugu dambaysay. muddo kadib maalmihii martigelinta ay walaalihii ula joogeen ayaa idlaaday. safarkiina wuxuu ku heshiiyey inay reerahoodii dib ugu laabtaan. markaas buu yuusuf damcay inuu jar u dego oo uu walaalihiis ku falo tab iyo xeelad uu kaga ilhelo. shaqaalihiisii ayuu faray cuntadii oo loo miisay inay u diyaariyaan una raraan, dabadeedna weelka dadka wax loogu miiso ay ku dhex qariyaan alaabta Benyaamiin gaarka u ah. ambabax kolkay u darbadeen oo la sagootiyayo ayay maqleen nin cod furan oo ku leh, safar iyo howsadcaalka u darban ee tegayow, la idin ogaa oo tuuga unbaa tihiina awrtiinna arruma, alaabta aad wadataanna soo dejiya oo dhulka soo wada dhiga. warkaas baa nimankii ilmo Yacquub ahaa filan waa ku noqday. yaab iyo afkala qaad buu Rabbi u keenay. ninkii codka furaa ayay inta soo ag joogsadeen ku yidhaahdeen, war waa maxay aflagaadada aad nagula hadlaysaa? maxaad noo masabidaysaa? maxaa kugu dhacay? maxaase kaa maqan oo aad weyday? markaas buu ku jawaabay, waxaa naga maqan weelkii boqorka ee dadka wax loogu miisi jiray. waxaannu shaki ka qabnaa idinku inaad xaddeen oo aad qarsateen. waxaan idinkula talin lahaa tashigiinna inaad ka noqotaan. haddii aydun sidaas yeeshaanna wax la idin raacan doonaa ma jiraan. weliba kiinii weelkaas keenaa wuxuu naga heli doonaa badar siyaada ah oo rati dhan rarkiis ah. taasna aniga ayaa idiin ballanqaadi kara, xilkeedana isa saaray. waxay ku jawaabeen, eebbe ayaannu ku dhaarannaye waad og tihiin dhulka inaan fasahaadino inaanaan u iman oo aanaan tuugana ahayn. ninkii codka furaa ayaa kolkaa ku yidhi, annagu wax gardarra a idinkula kici mayno, shirqoolna idin dhigi maynee, bal idinku go'aamiya waxa la yeelayo haddiiba weelka maqan alaabtiinna dhexdeeda laga helo. markaas bay ku jawaabeen, waxaannu leennahay xeer iyo diin oggolaanaysa ruuxii aad wixiinna alaabtiisa ka dhex heshaan inaad qafaalataan oo uu addoon idiin noqdo. sharcigayaga ayaa sidaa qoraya, annaguna inna lagu qaado raalli ayaannu ka nahay. waxaannu nahay rag isku kalsoon oo huba waxa loo haysto in aanay qabin, ab iyo isirna nadiif u ah. ballanqaadkaas ayuu yuusuf u bogay, aadna ugu riyaaqay. wuxuu ahaa axdi uu ku farxay, maxaa yeelay boqorka masar xeerkii uu ku dhaqmi jiray ma ahayn mid oggolaanaya tuugga in la qafaasho amaba xoog lagu haysto. ha yeeshee eebbe ayaa yuusuf u suurageliyey wixii uu doonayey inay u hirgalaan, isaga oo aan cidna qasbin, walaalihiisna aan ku dirqiyin xukun isaga uun ka soo fulay. weelashoodii ayuu baanjiyey oo aad u baaray. mid ayaa loo furfuray. weelkii Benyaamiin ayuu soo gaaray, mase koombadii wax lagu miisi jiray ee lala'aa ayaa ku dhex qarsoon. dibadda ayuu u soo saaray, wuuna hor dhigay. kolkaas bay yaxyaxeen oo ceeboobeen oo waxay ku hadlaan garan waayeen. madaxa ayay hoos u rogteen. yuusuf baa kolkaa xusuusiyey oo ku yidhi, axdigii aad qaaddeen waa inaad fulisaan, noona soo gacan gelisaan ninka aannu koombadayadii ka helnay si aannu uga gudanno eedda uu naga galay. waxay ku yidhaahdeen, wasiirow, waxaa inanka dhalay oday da'ah oo coobir noqday, 80 jirna ah. si aan la arag oo aan la maqal ayuu u jecel yahay, wax badanna araggiisa ma uu moogaan karo. waxaannu u soo ballanqaadnay inaannu si wacan u ilaalin doonno, isaga oo nabad qabana u celin doonno. waxaannu kaa baryaynaa 10 yaga kale midkood inaad la hadho, isagana aad ku beddelato. taasna wuxuu ka celiyey wasiirkii inuu eebbe ka magangelayo inuu la hadho ruux aan ahayn kii uu alaabtiisa ka helay. haddii uu sidaas yeelana uu daalin noqonayo. markii ay quusteen oo ay hubsadeen wasiirku in aanu codsigooda sina uga hoos qaadi doonin, ayay iyagii gees isula baxeen. markay isu keliyaysteen ayay faqeen. waxay ka tashadeen arrinta la soo gudboonaatay wixii ay ka yeeli lahaayeen. yahuuda oo ahaa intoodaba kii ugu weynaa ayaa yidhi, warsaw garan maysaan inaad aabbihiin axdi ku soo kala tagteen, dhaarna aad ugu marteen walaalkiin oo nabad qaba inaad u celin doontaan. maanta oo aannu walaalkeen ka soconno, dhaartiina inugu beenowday, bal maxaynu ku odhan doonnaa? weli aabbihiin kama uu soo kaban qarracankii ku dhacay kolkuu yuusuf waayey. dhaawacii maalintaas soo gaaray kama uu biskoon, indhihiisuna tan iyo waagaa weli ilmadii ma daynin. tii hore iyo tanba annaga ayaa ku kacnay oo eeddeeda iska leh. anigu kollay nin baan ahayoo dhulkan dhinacna u dhaafi maayo, tan iyo intuu aabbahay ii oggolaanayo amaba eebba go'aankiisa wacan uu wax ku guddoominayo.
ku noqda aabbihiin waxaadna ku tidhaahdaan aabbow inankaagu alaab buu xaday annaguna wixii aannu aragnay uun baannu sheegaynaa ee wax kale ma ogin wixii qarsoonse war uma hayno waxna kama ogin bal warayso magaaladii aannu joognay iyo safarradii aannu la soo noqonnay runta oo keliya kuwa sheegaya ayaannu aabbow nahay yahuuda mooye 9koodii kale ayaa tegey nebi yacquubna kolkii ay u yimaadeen ayuu benyaamiin ka dhex jeedaariyey markuu arkay inuu maqan yahayna wuu ismadax maray oo meel laga jiro garan waayey wuxuu noqday sidii qof xubnaha oogadiisa isaga oo nool qaar la jaray cod naxdin leh ayuu markaa ku yidhi walaalkiin maxaad ku fasheen dhaartii aad marteense maxaad ka yeesheen kolkaas bay sheekadii soo martay ugu soo celiyeen oo sidii ay rabeen wax ugu sheegeen intuu ka sii jeestay ayuu ku yidhi sida aad sheegaysaani ma jirtee naftiinna unbaa tala idiin qurxisay aniguse samir fiican baan weheshanayaa waxaa suuragal ah eebba inuu dhammaantood ii wada keeno eebbaha wax walba og ee falkiisu san yahay shalay yuusuf baan waayey maantana benyaamiin iyo yahuuda miyaa maqan hami iyo naxdin buu nebi yacquub gama la diiday walaac aan dhammaad lahayn ayaa hurdadii ka qaaday walbahaarka haya 2 jeer oo keliya ayuunbuu ka nasan jiray marka uu eebbihii u tukanayo ee uu sujuudda ku jiro kana baryaayo inuu siiyo dulqaad uu dhibaatooyinka ugu adkaysta iyo marka uu keligiis noqdo ee intuu labadiisa wiil xusuusto ay ilmadu goboolayso dhabannadiisana ay qoyso salaadda iyo xuska eebbe ayuu samir iyo iimaan ka kororsan jiray ilmada kululna wuxuu ka heli jiray raaxo iyo xasillooni uu muddo ku moodo waa siduu gabyaagii carbeed yidhiye eebbe ruuxna ilmada dheeldheel uguma abuurin eebbe isaga ayaa xanuunka naxdinta u ogaal badan wuxuu ilmada shubaba ugu dambaystii indhihii baa caddaaday araggii ayuu beeray wuu weydoobay oo inta dhuubtay caday qallalan u ekaaday sidaas wuxuu ku jiraba maalintii dambe ayaa waxaa qolqolkii uu ku jiray ugu soo galay wiilashiisa midkood wuxuu ugu yimi duqii oo markaa inta salaaddii ka baxay oo ducadii dhammaystay barooranaya oo inimadiisii uu waayey u ilmaynaya wuxuu cod muruga buuxisay ku leeyahay walbahaarayey maxaa waayiddii wiilashayda iga haysta markaas buu inankii wixii uu arkay la amankaagay dabadeedna walaalihii ayuu isugu yeeray si ay iyaguna u arkaan barambalka iyo basanbaaska uu aabbahood ku sugan yahay midkood ayaa kolkaa yidhi aabbow waxaa tahay rasuul weyn nebi wanaag badan ayaa tahay waxyiga ayaa adiga kugu soo dega annaguna adiga uun baannu hanuunka iyo iimaanka ka dhowraa maxaad kolka sidaan isugu halligaysaa maxaad naftaada murugada ugu dilaysaa miyaanay kugu filayn wixii aad ilma daadisay ee ay xirribahaagii la gureen indhahaagiina ay la caddaadeen iihda aahda iyo taaha aad ku raagtay sow iskama daysid sow adiga ooga ahaan dhammaaday oo maanta god qarkii saaran rabbi baan ku dhaaranaya sida aad yuusuf u hadal hayso ayuunbaa tabar gabi doontaa amaba ay naftu ku dayn doonta yacquub baa markaa ku jawaabay canaantiinnu xanuun uunbay ii kordhinaysaa dabka igu shidanna way sii holcinaysaa anigoo aan yuusuf arag laabtu ii degi mayso ilmada iga shumaysaana joogsan mayso inkastoo in bahal cunay aad idinku ku andacooteen haddana waxay aniga ila tahay inuu yuusuf nool yahay dareen naftayda ku weyn iyo waxyiga eebbe ayaan taana ku ogaaday ha yeeshee waxa aanan garanayn meesha uu ku sugan yahay iyo degaanka uu ku dhaqan yahay waa sababtaas midda aan la gubanayo ee murugada aan ku jiro ibadday haddiise aad iga naxaysaan oo waxa aan qabaa ay idin dhibayaan taga oo yuusuf iyo walaalkii dhulka eebbe ka raadiya idinka oo samir iyo dadaalba ku hubaysan taga oo wiilashii ii doona hana ka quusanina naxariista eebbe maxaa yeelay gaalada mooyee naxariistiisa cid ka quusataa ma jirto duqu intuu hadlaayay wiilashiisu si wacan bay u dhagaysanayeen hoosna way uga garaabayeen ereyadiisa oo idili dhab bay ahaayeen iyaga ayaa yuusuf ceelka ku riday iyaga ayaana lamadegaanka kaga dhaqaaqay sow suuragal ma noqon karto si uun inuu ceelkii kaga baxay lamadegaankiina kaga nabad galay halkee buuse jiri karaa degmade ayuu ku dhaqnaan karaa xaggee buu ka joogaa dhulka eebbe ee baaxadda iyo ballaarka badan iyagu yuusuf ka quuste rajo dambana kama qabaan benyaamiin meesha uu ku sugan yahayse waa yaqaaniin oo maalintii isugu dambaysay ma dheera waxay ku heshiiyeen wasiirkii inay mar kale ku noqdaan oo aad u tuugaan kana baryaan inuu ku soo daro walaalkood waxay filayeen taas markii laga yeelo inay aabbihiis u keenaan dabadeedna uu ilowsiiyo murugada hayse qaarkeed mar saddexaad ayay masar yimaadeen iyagoo quus iyo rajo u dhexeeya
wasiirkii bay hor joogsadeen. Qudhiisu aad buu uga xumaa xaaladdii ay ku jireen iyo wareerkii ku dhacay. waxay ku yidhaahdeen, wasiirow waana kan, iyada oo ay waayuhu nagu soo kaa celiyeen, annaga oo ku qasban madaxa intaannu hoos u roganno inaannu hortaada isa soo tubno. adduunku maalinba waasi oo waa har labadiisa gelin, maalin waa dheef maalinna waa dhib. xaalkayagu ma wanaagsanaa, noloshuna waa nagu adag tahay, waxbana islama hayno. badeeca liidata ayaannu wadannaa, soona safarsannay. waxaannu kaa baryaynaa waxa aannu nafta ku ceshanno inaad nagu sadaqaysato, markaa kadibna aad noo fasaxdo oo walaalkaynana raaciso. haddii aad sidaas noo yeesho, wiilkana ilmada ayaad ka tiri, aabbihiina murugada haysa ayaad uga maciin. sheekada yuusuf iyo yacquub. eebba kolkuu ku muujiyey sida ugu wanaagsan ee ay tahay in maqaadiirta loo rumeeyo, dhibahana loogu samro, ayuu idmay inuu yuusuf walaalihii isu sheego oo ninka uu dhabtii yahay uu ogeysiiyo. wuxuu eebba idmay yuusuf inuu walaalihii cafiyo, xumihii ay ku faleenna uu sama ugu beddelo, si aadanaha loo siiyo cashar kale oo ku saabsan dembi dhaafka, cafiska, deeqsinimada iyo dulqaadka. wuxuu ku yidhi, ma xusuusan kartaan idinka oo dhallinyaronimo iyo fudaydba ay idinku cayaarayaan, in shayddaan idin duufsaday, idiinna qurxiyey yuusuf iyo walaalkiis inaad sirqooshaan oo aydin yuusufna ceel ku ridaan, benyaamiinna aad dhib walba ku fashaan. ma xusuusataan ku idinka mid ahi markii uu gacantiisa xoogga badan yuusuf kor ugu qaaday, markii uu ceelka ku tuuray, isaga oo oohintiisa iyo baryadiisa aan dhag u dhigaynin, naxariisna aan u haynin. hadalkaas markay maqleen ayay isdhugteen. waxaa shaki ka galay cidda uu wasiirku dhabti yahay. waxa uu sheegayaa waa waxyaabo run ahaan dhacay, yaase ogeysiiyey. wuxuu ka sheekaynayaa waa taariikh, bal yaa u mariyey. ma waxaa u sheegay benyaamiin? maya, uma uu sheegin. maxaa yeelay sida dadka kale oo dhan, benyaamiin arrinta yuusuf waxba kalama socdo, ceelkii ay ku rideenna war uma u hayo. wejigiisa ayay si fiican ugu fiirsadeen. waxay ka eegeen astaamo iyo calaamado uu gaar u lahaa ayna ku yiqiineen. taasina in badan kama qaadan, durbadiiba way garteen. midkood baa markaa inta qaylo la soo booday ku yidhi, malaha adiga qudhaada ayaaba yuusuf ah. isagiina intuu benyaamiin farta ku fiiqay ayuu jawaab deg dega siiyey oo ku yidhi, haa, anigu yuusuf baanahay, kanina waa ina hooyahay. eebbe ayaana kulmiyey oo galladaas iska leh. qofkii ka dhowrsada oo samrana, eebbe waana abaalmarintiisa wacan ma seejiyo, kuwa samaha falana ajarkooda ma lumiyo. marna way guduuteen, marna way casaadeen, marna way caddaadeen. wax ay ku hadlaan ayaa laga madoobeeyey, erey qurana carabkoodii wuu kari waayey. waxay jeclaysteen dhulku inuu la go'o, amaba danab cirka kaga soo dhacay uu ku habsado. yuusuf baase kolkuu gartay dhibaatada ay ku sugan yihiin, isla markiiba uga maciinay. wuxuu ahaa walaal wanaagsan oo aan jeclayn baqdinta ay ku jiraan inay ku raagaan. wuxuu ahaa rasuul wacan oo aanay dabci u ahayn xumihii ay ku faleen inuu ka goosto, mudankoodana uu mariyo. inkastoo ay dilkiisa isu garabsadeen, isaga iyo benyaamiinna dhibaateeyeen, haddana waa walaalihiis, waana warasadii aabbihii. wuxuu u sheegay inaan wax eed a loo haysan, isla markaasna intuu u duceeyey ayuu dembi dhaaf eebbe uga baryey. aynu haddaba u noqonno nebi yacquub oo inta la dhibaateeyey adkaysi u yeeshay. yacquub oo culays aanay buuruhu qaadi karin la saaray, ha yeeshee isagu dhabar u lahaa, si wacanna ugu dulqaatay. sidaa darteed yacquubkii uu eebba ku qoray bogagga ay ku qoran yihiin nebiyada wanaagsan ee kini adeegga ku tilmaaman, nebiyada daahirka ah ee deeqda eebbahood xilli walba u hanqaltaagaya, baariga miirana wada ah. maamuuska eebbe ayuu yacquub ku helay abaalmarinta uu mudan yahay oo ah janno loo darbay oo loo diyaariyey. wuxuuse eebba qadaray aakhiro intaan la gaarin inuu adduunkana ku abaalmariyo, si uu u damacgeliyo dadka isaga yacquuba ka dambeeya, qaarka dhibaatooyinka loo geystana uu u baro sidii ay mar walba rabitaanka eebbe ugu hoggaansami lahaayeen. maalin maalmaha ka mida ayuu galay mawlicii uu ku cibaadaysan jiray. markaas buu tukaday, xuska eebbe ayuu ku dheeraaday, dabadeedna intuu ooyi karay ayuu ooyey. goor dambe ayuu iska dareemay isbeddel ku dhacay. si lama filaana ayay niyaddii ugu degtay. qaxankii ku shidnaa ayaa ka qaboobay. farxad uusan sababteeda aqoon ayuu la kala batay. wuxuu isweydiiyey, tolow dareenkani muxuu daaran yahay? rayrayntan sida kadiska ah ula soo gudboonaatay halkeebay uga timi? wuxuu haatan dareemayaa raaxo la mid ah tii uu dareemi jiray waayadii uu yuusuf la joogi jiray, ee uu dhabtiisa ku seexan jiray, agihiisana uu subax iyo garabba ku arki jiray.
dareenkaas farxadeed kolkuu haysan kari waayey ayuu af labadii yeeray oo dadkii agihiisa joogay inta u yeeray ku yidhi caraftii yuusuf baa sanka iga marmaraysa, caraftaas baa igilgishay oo qalbigayga xasilisay, caafimaadna igelisay. malihiisii yacquub kuma uu qaldanayn. dhab iyo run buu ahaa dareenkii farxadeed ee dhowaanta ku soo kordhay. awrtii safarka ahayd ee wiilashiisa ayaa masar ka soo ambabaxday, iyada oo waxyaabihii ku raraa uu gashigiisii ka mid yahay, gashigii yuusuf ee bishaarada siday, barwaaqada aragga iyo raaxada noloshana yacquub u soo celiyey. wax la wadaba safarkiibaa soo caga dhigtay. kii bishaarada xambaarsanaa ayaa inta soo ag joogsaday nebi yacquub gashigii ku dul tuuray, isla markiibana indhihiibaa u furmay. waxbuu arkay. xasiloonnidii ay muddaba kala maqnaayeen ayaa ku soo noqotay. markaas bay iyagiina sheekadii soo martay u mariyeen. wixii ay la soo kulmeen ayay u faahfaahiyeen, dabadeedna waxay ka baryeen inuu cafiyo oo uu raalli ka noqdo. yacquub baa kolkaa yidhi, waxba idinma tari karo, cadaabka eebbana idinkama celin karo, ha yeeshee rabbiga naxariista iyo cafigaba badan ayaan dembi dhaaf idin weydiinayaa. bal haddana awrtiinna rarka u dhammeeya oo sadcaal isu diyaariya, golaha wasiirku fadhiyana noo wada dhiga. waa ayaanba ayaane barxadda aqalkiisa ayuu yuusuf ku arkay aabbihii, hooyadii iyo 11 ay walaala yihiin oo isaga wada maamuusaya, iyaga oo si walba u xormaynaya hortiisana 10. markaas buu gacmaha kor u taagay oo intuu xagga iyo samada u jeestay ka mahadnaqay deeqda ballaaran ee uu eebbihii ku bantookay. wuxuu yidhi, eebbow, xukun baad isiisay, furidda riyadana adigaa i baray, cirarka iyo dhulka eebbihii abuurayow, adduun iyo aakhirana adiga ayuunbaa gargaare ii ah. eebbow, aniga oo muslina i oofso oo i haleeshii addoommadaada kuwooda suubsuuban. dhegaystayaal, waxaa halkaa inoogu idil qaybtii 6 uguna dambaysay sheekadii nebi yuusuf oo ka mid ahayd taxanaha sheekooyinka qur-aanka kariimka ah.